dhibaatada loo geysta shabaab yani dhibaato weligood ku dhacda run ahaanta hadii laga hadlo aniga shalayaan waxaan ka imiday xaggaas iyo dhulkan shabeellada dhexe marka waxaana meeshaas u tagay in la dardar geliyo sidii dadku ay iskaga bixinayaan cadawgaas qawaariidta marka abaabul aad iyo aad u fiican ka socda diyaar garow fiican ka socda dadkuna waxay maanta diyaar u yihiin in ay cadawgaas la dagaalamaan iska bixiyaan oo gobolladoodii iyo dalkoodii oo saafi ay ku noqdaan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdana isbedel dhawaa dhici doono marka hadii Ilaahay yiraahdo sida aan ognahay dawladda xaggeeda iyo nooc kasta Ilaahay idinkiisa marka ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogta waxaan ugu baaqayaa in la iska rabsado la isu yimaado cadawgaasna hal meel looga soo wada jeesto haddana waxaa muuqata abaabul aad u fiican oo ama ha noqoto dhinaca dawladda ama ha noqoto guud ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ha noqoto dadka deegaanada jooga siyaasi ahaanna waxa waaye insha Allah dagaalku dib u bilaabanaa maadaama hadda dawladda ay soo jeesatay dhinaca oo dheegle guul weyn laga gaaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida gaasatan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale oo saaxiibadeen oo garab helaya ayana hambalyan u dira marka guud ahaan dhinacaas haddaan ka hadlo dagaalada xaggeeda abaabul aad iyo aad u fiican ka socda markana natiijo fiican maqal doonto insha Allah jiidan nimankan shabaabka ah waxa waaye dagaal ay soo qaadeen dagaalkana ahaanta natiijo fiican laga gaaray dadkooda madax oo sarsare waa lagu dilay dadka waxa u muuqata kaliya meelo ay qabsadeen laakiin dhibaatada loo geysta shabaab yani dhibaato weligood ku dhacda run ahaanta hadii laga hadlo waa ayadoo khaasatan laga la dagaalamayo dhinaca cirka hadda waxaad ogtihiin guusha ugu weyn ee laga gaaray dhinacan bariire iyo dhulkan kaleeto oo dheegle